warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan duqeymo culus oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaana hoostaga gobolka Jubbada Hoose maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. wararka ka imaanaya magaalada Jamaam ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in duqeymo culus oo ka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab saacadii la soo dhaafay ka dhaceen halkaasi. sidoo kale wararka ayaa waxa ay sheegayaan in duqeyntan ay timid kadib markii howlgallo qorsheysan ay ka dhaceen magaalada Jamaam ee gobolka Jubbada Hoose maamulka dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaasi oo ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale kuwa daraawiishta maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. howlgalladaas ayaana la sheegay in lagu beegsaday fariisimay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku lahaayeen magaalada Jamaam ee gobolka Jubbada Hoose ee maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. duqeymahan ayaana sidoo kale la sheegay inay ka taageerayeen ciidamada Mareykanka, kuwaasi oo la sheegay inay yihiin kuwa sax ah inkastoo ilaa weli war rasmi aysan ka soo saarin militariga Mareykanka ee la sheegay inay fuliyeen duqeymahani ka dhacay gobolka Jubbada Hoose maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. wararka ayaa waxay inta ku darayaan in duqeymahani si gaar ah lala beegsaday fariisimay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku lahaayeen magaalada Jamaam ee gobolka Jubbada Hoose maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale kuwa maamulka dowlad goboleedka Jubbaland ayaana sheegay in howlgalladani ay yihiin kuwa si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada hoostaga gobolka Jubbada Hoose maamulka dowlad goboleedka Jubbaland. ilaa hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha rasmiga ka dhashay duqeymahani culus ee saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Jamaam ee gobolka Jubbada Hoose maamulka dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaasi oo la sheegay in lagu bartilmaameedsanayay fariisimay dagaalamayaasha Al-Shabaab ku lahaayeen halkaasi. si kastaba ha ahaatee duqeymahan ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli ciidamada daraawiishta maamulka dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay howlgallo culus oo ka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka sameynayeen gobolka Jubbada Hoose maamulka dowlad goboleedka Jubbaland.